arkayna halkan in double bottom keenan uu jabiyay in uu halkan buy ka dhacay in halkan sorry in halkan markii uu jabiyay double bottom keenan in halkan laga buy gareeyay in halkan markii uu jabiyay double bottom keenana in aysan hadda la yaab nagu noqonaynin oo aan arkayna psychology ahaan 1 2 3 na hadirtan in uu jabiyay double bottom keenan sidaas darteed in DXY uu isku diyaariyo jihada buy-ga waana psychology ahaan qaabkan u fikirayno oo haddii uu dhaco halkan oo aad aragto in price-ka uu jabiyay wax yar kadibna retrace uu soo sameeyay annaga mar waliba ma isticmaalno support resistance oo ah qaabkan marka uu u jabiyana in aan dhahno suuqii sell uu aaday marka uu la baxana maxay ahayd halkan kore uu jabiyana in aan dhahno suuqii buy uu aaday badanaa waxaan sugnaa retrace-ka kadibna falaagaas ayaan fiirinaa 1 hour haddii aan ka helno iyo haddii aan 15 minutes-ka ku filter garayno intaba sidaas darteed hadirtaan qaababkii halkan aan kusoo dhaqmaynay oo dhan inaan lower inaan helnay new low inaan buy garaynay new low inaan buy garaynay new low in hadirtaan jihada buy-da uu aadi doono DXY-ga qaabkaas ayaan psychology ahaan ugu fiirin doonaa iyo qaabka uu ku furmo berrina muuqaal ayaan soo dhigi doonaa oo aan xaaladiisa ku socono meesha ugu dambayso halkan haddii uu jabsado uu sii socdo uu gaari karo DXY-ga waa double bottom-kan oo ilaa iyo halkan in uu sorry maanan duubin in aan duubo waa muhiim marka waa duubi doonaa insha Allah walaalaha kaleeta bal si ay uga faa'iideystaan ay kan waa iloobay inaan duubo marka hadirtaan duubitaanka bilaabayna ma duubeyna marka ma duubi karno waxa waa cabdicasiisa hoostiya marka inuu asaga soo dhiibay noqonaysa iska daa oo ka soconayna insha Allah euro USD ayaan isla fiirnaynaa iyo jihada ayadana marka aan uga faa'iideysan lahayn euro USD sida hadirtan uu ku sugan yahay DXY waxaan soo aragnay in uu samaystay new low cusub jihada buy-ga ahna in aan ka sugayno uu buy isku diyaarinay taa waxay la macno tahay euro USD in ay soo dhici doonto ilaa ay double bottom-kan in ay imaan doonto at least low-gan waa meel ay ka reversal garay karto oo ay journal ka samaysan karto ugu waa inaa isha ku hayso halkan haddii uu trade link ku saaran yahay oo qaab noocan oo kaleeta ay tahay xaaladaada inaad u fiirinaysid 1 2 3 gan oo kaleeta hadaad fiirinayso halkan haddii uu ku yaalo expanding-kaagii markii horeetaba qaabkii uu noogu saarnaa ilaa iyo halkan inaan treatage-keena ka helno meeshan sidoo kaleeto waa area reversal ka samayn karo oo ah meeshii uu ka kacay jihada buy-da suuqa markii uu aaday price meeshii uu ka bilowday oo halkan ahaa marka intaasoo qaab waa waxaan ku manage garaynayno maxaan sugaynaa marka 1 hour haddii aan tagno 1 hour haddii aan tagno pattern-ka waxaan arkaynaa inaan helnay rail lane-keena double top-ka inaan helnay retrace waxaan sugaynaa dirtaan meeshan haddii aan falaag ka helno halkaas falaag haddii aan ka helno falaagan dhammaan waa wada qaadan doonaa oo lacagta waa seel garay doonaa oo waa qaabka aan ka fiirinayno waxaa noo sii xaqiijinaya halkan oo pattern-kan haddii uu ad arkayso inuu head and shoulder oo kaleeta samaystay meeshan right shoulder-kii inuu hagaajinayo oo saas kusii dhici doono waa halkan haddii aan ka helno falaaga aan fiirinayno waa in uu noqdo falaag tight falaag haddii aan helno ama large flag 6 kandhal ilaa iyo 7 kandhal ayaan fiirin doonaa hadduu ilaa yiraahdo 1 hour ayaan ku fiirinaynaa 15 minutes-kana waa ku filter garaynaynaa maxaa kaloo dhici karo halkan inuu ka yimaado in pattern separation uu yimaado waa suuragal iyo waxaan maanka ku hayno in uu jihadii buy-ga ahaad sii wadana waa suuragal iyo waxaan maanka ku hayno balse at least lacagtan journal-kan in ay jabiso oo meeshan reversal uu ka imaado waxa aan raadinaynaa waxay tahay inaan si fiican iyo dhuuqdaan aan rajaynaya insha Allah in halkan journal-kan inaan jabino ku laabano qaab noocan oo kaleeta waa meesha aan ku leeyahay waxba iska bedeli doono oo reversal ayaa ka imaan doono area-dan laakiin intaanba waa ka faa'iideyn karnaa oo waa maxay jihada selka waa uga faa'iideysan karnaa balse haddii ay noqoto halkan inaan ka helno large flag qaab noocan oo kaleeta ku samaysto lugtaan haddii corrective ahaan noocan oo kaleeta ay u imaato meeshaas markaan waxaan arkaynaa haddii aan baatinka si qurux badan u sawirno bal si aad indhahaadana aad maxay ugu aragto oo aad qiyaas ahaan u fiiriso waxa dhici doono kale una gacantaadana ay ula qabsato sida baatinka imaan doono aad u hagaajiso haddii uu noqon lahaa buy haddii uu noqon lahaa in price uu laabto qaab noocan oo kaleeta uu laabto inta in uu corrective ahaan noqdo meeshan inaad heshid double bottom halkan inay noqdo middle section oo 1
2 inay noqoto halkan inaad 1 2 ka hesho kadibna impulsive-ka halkaas uu yimaado meesha mini double top lagu soo sameeyo qaab noocan oo kale tahay structure-ka hadii uu noqdo waxaan arkaynaa markaas in jihadii bayda ahayd ay ku socoto euro USD jihada bayda euro USD hadii ay qaabkaas u aado maxaan ka filaynaa ilaa halkee ayay tagi kartaa waa su'aasha ogow meeshan annaga waxa noo yaalo waa hadii aan daily-ga ku laabano afwan hadii aan daily-ga ku laabano meeshan waxaan arkaynaa in aan haysano meeshas waxaan haysanaa waa trade lane keenaas two touch-ka area-diisa markaas waxay noqonaysaa meel aan maanka ku hayno oo gebi ahaanba in uu jabiyo double top keenan waa haddii aan helno buttonkaas reversalka buttonkaas maxaa la yiraahdaa continuation-ka afwan buttonkaas continuation-ka haddii aan helno markaas oo qaabkan oo kaleeta oo middle section kugu samaysto markaas waa buy galay doonaa jihada buyda ay aadaysaa balse euro USD jihada sell-ka ah ayay aadi doontaa oo sell ayaan toddobaadkan ka raadin doonaa waxyaabihii aan ku qeexnay intaba DXY sidaan usoo falanqaynay intaba inay maanka ku jiraan ayaan rajaynaynaa insha Allah intaas ayaan ugu gudbaynaa waxaan isla fiirinaynaa lacagta xigta euro JBP ayadana fursad ayaa ka muuqata toddobaadkan hadduu ilaa yiraahdaan bal ka faa'iideyn karno iyo waxa lacagtan ay kusoo dhaqmaysay intaba haddii aad aragto meeshan waa wixii aan haddeertan psychology ahaantii aan hadda kasoo sheekaynaynay oo aan idin lahaa lower cusub ayay samaysatay lacagta kadibna waxay aaday jihadii maxaa la yiraahdaa buyga ahayd lower cusub oo DXY ga samaystay jihadii buydeedu waaday lower cusub oo samaystay jihadii buydeedu waaday waxaas oo dhan waxay tahay in aad bal psychology ahaan u miisaaman tahay oo aad dareemi kartid xaaladda waxa soo socday iyo waxa dhici kara meeshan markaad aragto in uu dhacay double top-kaaga in la jebiyey oo in candle-kii intuu jebiyey double top-kaagi ahaa kadibna retrace candle inuu dhacay candle-kii candle u dhigma ama 50% inuu candle-ka kaleeto u dhigmo kadibna in uu noqday jihadii selkeed in loo sii buush garay halkan sidoo kaleeto waxaad arkaysaa in uu jebiyey kadibna wixii halkan ka dhaco kale retrace candle inuu dhacay kadibna qaab noocaas oo kaleeta oo suuqii markaas uu sell u sii aaday price action-ka haddii aad fiirsana waa isku mid oo haddii aad soo jarto oo aad fiirso labada qaab oo suuqa u jebiyaba waxaad arkaysaa in uu isku mid yahay ayaad arkaysaa kan iyo kan asaga wax ay ku kala duwan yihiin price action-ka haba yaraatee ma jirto oo qaab noocan oo kaleeta markaad u saarto meeshan inay impulsive-ki tahay halkan inay middle section-ki tahay waxa dhanba marka intaas ayaan ugu gudbaynaa laakiin psychology ahaan waa inaad isku diyaarisaa qaabka uu suuqa u dhaqmaayna lacag walbana dabeecaday leedahay ogow ma aha keliya haddeertan inaad fiirsid midaan waa dhahda lacag kalena dabeecadaas oo kaleeta yeelanaysaa maaha lacag weliba dabeecadda ay leedahay inaad kula dhaqanto ayaa aad iyo aad u muhiim ah intaasaan ugu gudbaynaa waxaana fiirinaynaa fursadda na hortaalo toddobaadkan iyo qaabka aan uga faa'iidaysan lahayn markaas euro JPY inay halkan tegayso analyze-keeda waa soo dirnay haddii aad xasuusataan haddii kalena maxay ahayd waan haynaa oo maxay ahayd waa soo diri doonaa iyadana entry tagekaas expanding-ka in maxay ahayd uu naqshadan soo dhamaystiro tageka halkan inay tahay buttonka middle section-ka mar waliba oo button uu samaysmayo waa qasab iyo waxaad ku qasban tahay inaad hesho middle section inaad hesho middle section haddaadan haysanin button ma haysatid muhiimadda ayaa taas ah waana wax mar waliba uu naqshad button is dhamaystirayo waxaan ku aragnaa annaga in aan helayno maxay inaan helayno middle section uu noo confirm garaynayo buttonkaas inuu yahay button maxay ahayd is dhamaystirayo oo rasmi ah at least inuu isku dhamaystiro meeshan rail lane-keena uu noo saaran yahay oo correction-ka uu ku samaystay haddii kalena probability area-daas inuu tago 1 2 3-ka kadibna impulsive-kan corrective-kiisa ayaad qaadanaysaa adiga marka uu kusoo dhaco hadda maxaa dhacayo maxaase aan ka filaynaa in uu yimaado haddii price-ka uu sii socdo oo halkan flag ku samaysto ayada selkeeda ayaan usii qaadan doonaa oo jihada selka ay mar waliba ku socotaa balse entry qaabkee ayaan uga raadin karaa sidaan oo kaleeto haddii ay u baxdo lacagta large correction-kan xataa haddii ay samaysato waxba walwaligaysan kugu haynin oo jihadii selkaad ayay aadaysaa oo buttonkaas oo kale haddii aad aragto haddii qaab noocan oo kaleeta ay usoo dhacdo ayadana halkan ay flag ka samaysato weli waxba isma bedelin halkan
qaab noocaas oo kale taa 1 ay ku samayso falaagan ay ku samayso inta waa sel garaynayna marka euro jpy waxa aan ka raadinayno okay sorry aan bal fiiriyo maanta yani kulli Cabdicasiis ayaa hoostiya marka sidaas ayaan u fiiri doonaa insha Allah taala euro jpy waxa aan ka raadinayno waa jihada selka ilaa halkee ayaan euro jpy la socon doonaa lacagtan waa lacag at least ilaa rayline keenaas tagi doonto at least ilaa iyo rayline keenaas ilaa iyo halkan oo correctionka ka bilaawdo meeshan trade link uu ku saaran yahay intaba waa beep fiican iyo lacag fiican ayaa ku jirto marka 300 oo beep noocaas oo kale taa in ay sii jabisana waa waxa aan raadinayno oo ilaa iyo at least trade link keenaas ay tagto marka euro jpy fursadaas ayaa ka muuqata selka ayadana aan isha ku hayno waxaan tagaynaa CAD JPY ayadana aan isla fiirino xaaladeeda iyo qaabka markaas aan bal entry uga heli lahayn meeshaan waxaan haysanaa horta lacagta meesha ay ka timid xaaladay kusoo dhaqantay marba high time frame-ka muhiim ayuu noo yahay waxyaabaha aan ka fiirinaynaa waxay tahay halkan inay tahay ascending within ascending in uu buuxiyey 90%giisii in halkan double topka la tegay impulsive-kan inuu yimid 90% rule in la buuxiyey haddana aan ku jirno corrective phase waxaan raadinaynaa in ay noqoto impulsive phase-kan soo socday inay noqoto ogow korna way u jabin kartaa lacagta laakiin waan isla qeexaynaa oo batankii iyo waxa ay ku sugan tahay ayaan isla fiirinaynaa kaliya maaha inaad probability-ga ka fiirso possibility-gana waa muhiim in aad suuqa ka fiirso sidaas darteed waxaan tegaynaa 4 hour-ka iyo waxa na hor yaallo oo fursada waa inoo muhiim sidaas darteed rayline-kan hadda waan tiraynaa oo waxba nooma haya asaga waxaan kusoo fiirinay in uu yahay area double top ah in aan haysano sidaas darteed waxaan dhiganaynaa trade lane-keena ayaan dhiganaynaa halkan sidoo kale asagana trade lane-keena ayaan dhiganaynaa meeshaan fursadda ka muuqato 1 hour-ka haddaan tagno qaabkee ayaan entry-giga u qaadan doonaa sidee ayaan si ula macaamili doonaa haddii aan lacagta entry ka helo waa muhiim markaan hadday idin soo iri button haddii uu samaysmayo waa qasab in uu lahaado middle section waxaad arkaysaa buttonka bilowgiisaba in uu soo samaystay middle sectionkii halkan inay tahay ayadana middle section marka sidaas darteed waxaad arkaysaa in mar saddexaad haddii uu xataa noqdo at least meeshan haddii uu imaado xataa selkeeda waan ka qaadan doonaa haddii dabeecadda ay leedahay CAD JPY waxaan kugu soo tusay high time frame-ka markaan joogno daily-ga oo ay ahayd ascending-keeda markii ay jabisay mini ascending-ka 90% rule-ka markii uu buuxiyey in uu laabtay double top uu sameeyey sidii si la eg hal deertan corrective-kan waxaad arkaysaa in uu jabiyey suuqii oo 90% rule-kiisii in uu buuxiyey haddana in uu u socdo at least in uu halkan double top kusoo samaysto double top-kan halkan uu kusoo samaysto waa ka soo qaadanaynaa waana soo seel garaynaynaa at least ilaa iyo trade lane-keena halkan haddii ay noqoto marka in corrective ahaan uu suuqii ku tago oo sida uu halkan ku sameeyo kaleeto ay noqoto in uu ku tago markaas middle section inuu yahay ayaan arkaynaa halkan ayuu wuxuu ka samayn doonaa large double top ayuu ka samayn doonaa inta uusan impulsive-kan dhicin ka hor daily haddii aan kugu celiyo hal mar bal si aad psychology ahaan isku dhamaystirto oo aysan cabsi kaa tegin suuqii xaaladiisa ama isbedeshay oo kale meeshaan markaad ka seel garaysa lacagta dabeecadeedana inaad la socoto waa muhiim iyo waxay ku dhaqmayso markii hore halkan markii uu buuxiyey corrective-ka 90% rule-kiisa markii uu buuxiyey waxaa dhacay impulsive correction impulsive halka uu socday inuu buuxiyo double top-kiisa meeshaan markii aad ka cabsato oo aad dhahdo aniga halkan suuqii kama seel garay doono sababtoo inuu buy aadaa laga yaabaa psychology ahaan qaabka uu fikrisid inuu impulsive-kan markaas ku dhaafo sidaas darteed haddeertaan haddii aan 1 hour-keena ku laabano iyo qaabka halkan aan uga helayna buttonka waxay tahay haddii aan tagno halkan hadhiin suuqii isla markiiba ma seel garaynayo oo wuu jabin doonaa oo buy ayuu u jabin doonaa kadibna in uu ku dhaafo maxaa la yidhahdaa cafwan halkan ayaan jeedaa in uu price-kii laabto halkan inuu corrective aan ku tago meeshan in uu large double top ku samaysto meeshan marka inaad dhahdo aniga kama seel garaynayo kadibna inuu impulsive-kaas ku dhaafo psychology ahaan qaabkaas ayay ahayd balse meeshan ayaan ka seel garay doonaa waan entry-geena ka raadin doonaa meesha aan ka seel garaynayno
عفوا ماشي aan ka seel gareynayno oo halkan ah wax yar ayaa ka dhiman isla caawa sida uu soo ku furmayaan fiirinaynaa berritana intriga waa soo diri doonaa qaabka aan rajaynayno waayo hadduu ilaa yiraahdo in aan bal intriyaasha qaabkan u qaadanayna lacagaha inaad aragtaan kadibna in aad adiga aad marka dambe aad xorowdo oo aad goonidaada u trade garayso markaad si kalsoonaato meeshaan in aan ka helno 1 2 3 oo kale in aan ka helno qaab noocaas oo kaleeta in aan soo seel garayno meeshaan marka haddii uusan trade link gaarin halkan ayadana in meeshan trade link haddii uusan gaarin in halkan haddii aad reversal ka hesho meeshaan haddii uu correction imaado in aad keensato break even kaaga waa muhiim intriga in aad keensato suuqa aad iyo aad ayay muhiim u tahay oo markaas inaan haysano impulse correction impulse balse tan annaga ayaaba kula joogna oo kaaga digi doona oo suuqii annaga ayaa active noqon doona oo ku dhex jiri doona tan inaad forecasting ku saarta maaha marka koowaad horta intrigaada halkan ka soo qaado suuqa sug meeshaan ha ku yimaado kadibna soo seel garayo intrigeena halkaas aan ka helno ka JPY ayadana jihada intriga ay seelka ayaan ka fiirin doonaa intrigeedana halkaas ayaan ka raadin doonaa USD CAD ayaan tigi doonaa fadlan okay lacagaha waa usoo socdaa waa fiirin doonaa balse waxaan malaynayaa inaadnan imaqlaynin haddaa imaqlaysaan waa okay waana sii soconaynaa okay waa imaqlaysaan haddaad imaqlaysaan waa sii soconaynaa muhiimadeena taas ayaa ah marka dailyga haddii aan tagno 4 hour haddii aan lacagteena trade lane-yadeena saarano halkan inaan haysano qaabkee ayaan lacagtan u raadin doonaa oo aan jihadee ayaan toddobaadkan ka filaynaa inay aado USD CAD cafwan USD CAD waxaan ka filaynaa jihada bayda in ay aado balse halka hadda ay ku sugan tahay ma aha isla markii suuqa in markuu furmo in aad buy garayso ma aha sababtoo ah wax yar haddii aan ku tuso halkan markii uu suuqa ku sugnaa meeshaan ama haddii aanba soo jarno asaga dhan oo aan meesha hadda uu ku sugan yahay keenno for example inaanba inta kasoo jarno kadibna halkan inaan keenno waxaad arkaysaa qaabka hadeertan uu yahay priceka iyo kan in uu isku mid yahay wax yar in trade lane-keena loo jiro waxa aan sugayna marka maxay tahay halkan waa maxay baatankan aan haysano baatankan aan haysano descendingka qaab noocan oo kaleeta inuu usoo baxo halkan inuu ku rafto sidaan oo kaleeta inuu usoo baxo waa muhiimadda aan raadinayno oo aan helno qaab noocan oo kaleeta oo correctiveka in loogu sameeyo trade lane-keena ama gebi ahaantiisba haddii aan soo jarno oo aan halkan keenno haddii aan correctivekan oo kale helno qaab noocan oo kaleeta in aan markaas u buy garayno oo aan jihada buyga aan u qaadano ma dhici kartaa trade lane-keena asagoonan la imaan in aan meeshaan ka helno maxay ahayd impulsive buy ah in aan ka helno oo aanan u baahnayn inaan trade lane-keena taabanno taas waa muhiim waana inaan ku baraarugsanaano waa inaan ku baraarugsanaano aad iyo aad ayay muhiim u tahay sababteeda waxay tahay meeshaan haddii aan ka helno qaab noocan oo kaleeta suuqa inuu ku furmo halkan inuu flag dhiibto markaas 15 minutes waa ku filter garaynaynaa waana qaadan doonaa waa ignore garaynaynaa in aan trade lane-keena imaano balse halkan haddii aan descending ahaan u tagno sida halkan corrective ahaan descending haddii aan halkan ka helno qaab noocaas oo kaleeta priceka uu furmo asagana at least waxaan buy garay doonaa USD CAD ilaa iyo highgenas 1 ilaa iyo meeshaan aan ku haysano trade lane-keena oo ah descendingka correctivekan meeshii uu kasoo bilowday in aan dhamaystirno haddii aan markaas jabino oo noqoto in uu yimaado impulsive waa idinku dhex jiri doonaa insha allah waxbaa ka welwelina mar welibana waan soo diraynaa lacagaha intriga leh iyo qaabka un qaadanaynana ayagoo maxay faahfaahsan ayaa idinla wadaagi doonaa marka 1 hour haddii aan helno halkan lacagta inay corrective ku gasho in ay soo dhacdo meeshaan inay corrective ku samayso qaab noocaas oo kaleeta ay u jibisa trade lane-keena ogow markaas USD CAD mar waliba waxay jihada seelka ah lacag ku socotay at least markaas ilaa iyo trade lane-keenan ayay socon doontaa jiha walbo ay u dhaqaaqdo USD CAD waxay boqolaal bib ayay dhaqaaqi doontaa haddii ay noqoto trade lane-keena ilaa iyo halkan 700 oo bib haddii ay noqoto meesha aan reversalka ka sugayno
ilaa iyo eriyadeenaas oo 580 bib sidaas darteed mar waliba waa in annaga suuqa uu noo yimaado oo aanan degdeg u gelin dhowr boqol oo bib annagoo haysano oo labada jiha ula socon karno lacagta intrigeeda in ayna siiso ayaa muhiim ah sidaas darteed hadda meesha ay ku sugan tahay oo ah meel u dhow trade lane-keena ma aha meel aan go'aan rasmi ka qaadanayno oo waa inaan sugno oo aan aragno qaabkaan uga reversal garayn lahayn trade lane-keena qaabkaan uga reversal garayn lahayn eriyadeena wax yar price-ka ha is dhamaystiro aan sugno wax yar price-ka ha is dhamaystiro haddii ay noqoto qaabka hadda uu ku socdo oo aan u malaynayo in uu yahay descending triangle haddii descending triangle-kan uu ku socdo qaab noocan oo kaleeta baatinada aan sawir gacmeedyada ka sameeyay meesha ku jiro oo ascending triangle iyo descending triangle-ka aad arkay sidoo kale haddii ay noqoto in meeshan uu baxo sidaan uu u laabto kadibna uu soo dhamaystiro halkan ugow descending triangle-kan continuation pattern waaye oo markaas jihadii selka ahayd ayuu kusii soconaya jihadan selka ahayd continuation pattern-ka haddii uu jabiyo kadibna aan helno retrace markaas waa qaadanaynaa ama corrective halkan aan ku galno qaab noocan oo kaleeta haddii aan ka helno meeshan trade lane-kan waxa ka dhacay inaad aragtid waa muhiim halkan oo kale qaab noocan oo kaleeta markaas haddii aan helno impulsive-kan ayaan ka faa'iideysanaynaa oo jihada bayda ah sida halkan aad ku aragtid oo kale in uu corrective ku sameeyay markuu soo dhacay kadibna in uu flag samaystay oo markaas jihada bayda ahayd uu u reversal galayay suuqa marka waxaa dhiman 5 minutes dhiman oo kusoo laabanaynaa balse dhib malahan balse waa sii socon doonaa si aan laba lacag usii falanqayno Eurocat ayaan isla fiirinaynaa iyadana iyo fursadda na hor taallo oo aan Eurocat ayada waxaan ka raadinaynaa hadduu ilaahay qadaro dayliga ayaan tegaynaa insha allah balse aan uga helno jihadeeda for hour CAD JPY at least inay soo dhacdo ilaa iyo rail lane-keenaas ama trade lane-keenaas balse jihada ay u socon doonto lacagtan oo aan jihada buydaad aan ka raadinayno ilaa iyo buy balse waxa ay noqon doonto waa short sell ayay lacagtan noqon doontaa laakiin jihadeeda guud waa jiha buy ah oo waxaad arkaysaa mar waliba qaabka ay tahay iyo waxa ay ku socoto sababtoo ah meeshan haddii aan daily kugu celiyo wax yar aan meeshan ka tuso halkan asagana waa filing wedjiyada ayadana labadooda ayagoo bearish ah ayagoo bullish ah labadooba sawir gacmeed ayagoo ah way kugu jiraan oo maxay waa ka hadalnay qaab noocan oo kaleeta inuu wedjigu u sameeyay kadibna inuu impulsive yimid hadda inay correction ku jirto in aan helno at least trade lane-keena ama in aan taabashada saddexaad soo taabarno sidaas darteed ayadoo aan ognahay jihada guud in ay tahay buy oo aan uga fiirinayno qaabkeen ku sell garay karnaa oo aan uga faa'iideysan karnaa short time sell halkan inaan haysano saddexdeena taabasho kadibna in aan wax yar price haddii uu halkan flag ku samaysto qaab noocaas oo kaleeta waxaan arkaynaa jihadeedii markaas in ay sii dhamaystirayso oo ay buy ku soconayso balse waxa aad ka fiirinayso haddii aad sell garaynayso oo aan sell uga faa'iideysanaynaa waxay tahay inaan wax yar meeshan price uu soo dhaafo qaab noocan oo kaleeta suuqa uu ku furmo kadibna halkan flag haddii aan ka helno noocan oo kaleeta lacagti waa sell garaynaynaa oo jihada selka ayaan markaas u qaadan doonaa ilaa iyo raylankeena markaas waa sell garaynaynaa 250 bib ayaa ku jirto marka 250 bib waa waxaan ka faa'iideysan karno oo short time sell ah 250 bib ayaa marka ku jirto USD CAD oo aan ku sell garay doonaa waxaan kale oo aan ayadana fiirinaynaa haddii aan hore usii soconno aan fursadaha iskula sii fiirno euro NCD waxa laba wayba waxaa laga yaabaa journalkan haddeertan inuu ku sawiran yahay oo ay ku jirto corrective-ka ah qaab noocan oo kaleeta haddii uu kugu yaallo trade lane-kaaga oo aad sugaysid in la jebiyo kadibna jihada selka ah aad u qaadato wax kaa qaldan ma laha qaabka u fikraysidna waa qaab saxan oo in aad qaabkaas u sell garayso analyze-kaaga haddii uu yahay ayaan jeedaa
at least in aan sell garayno haddii aan falaag ka helno ama aan jebino maxaa la yirahdaa patternkan haddeertaan corrective-ka oo aan ku jirno inaan falaag halkaas ka helno jihada sellka in expandingkeenan aan soo dhamaystirno 1 2 3 ga ogow UNCD maxaa la yirahdaa euro NCD iyo euro AUD intaba waa lacago ku socdo jihada sellka lacago ku socdo balse waqtiga yar oo ay ku siinayaan buyga ama ay ku dhamaystirayaan structure-ka waa waxa aan ka faa'iideysanayna ay noqon doonaan mana arko haddeertaan wax meeshaan haddii ay noqonayso in corrective-ka ay kusii samaysato ay ku jebinayso treatage halkaas ay soo samaysanayso meeshaan inay inverse head and shoulder oo kaleeto in ay samaysato waa wax dhici karo waan fiirin doonaa qaabka suuq u furmo intaysan soo daadanin ka hor oo halkan inay noqoto impulsive large correction halkaana inay correction halkaas ku samaysatay kadibna inay halkan large correction ku samaysatay intaysan dhicin ka hor oo section 1 section 2 section 3 geeda ay dhamayso halkan inay inverse head and shoulder ay ku tagto intaas dhan waa waxaan fiirinayno oo aan isha ku hayno balse taas nagama hortaagna euro NCD inaan hadda sell garayno nagama hortaagna oo waxa aan arkayna ayaa waxay tahay in kaliya patternkan hadda ay ku jirto in ay jebiso oo halkan corrective ay ku samaysato kadibna jihada sellka in ay siyaado oo qaabkaas aan u sell garayno oo gebi ahaanba inaan ignore garayno treatage-kaas inaan soo samayno intaanan soo sell garayno halkan possibility-geeda waan fiiri doonaa balse probability-ga hadda ay ku socoto jihada sellka ayaan usii qaadan doonaa intrigana aan uga fiirin doonaa haddii ay isu bedelaanna ayadana waa update garaynaynaa ayagoo muuqaal ahna waan kusoo diraynaa qolka hadduu ilaa yiraahdo marka USD CHF ayadana jihada aan ka raadinayno iyo waxa macquulka 1 minute ayaa dhiman marka waa soo noqonaynaa insha Allah 1 minute hadda waxba kuma sii falanqaynayna dan maadaama dhexda uu ku go'ayo su'aalihiina iyo ayaan fiirin doonaa okay lacagii aniga aan habaysto uu ustaad ku dhex jira masha Allah haddaa habaysatay waa okay waay website-ka wuu soo socdaa walaal waxyaabo aad ku farxdaan soo socdo biidhnillaahi tacaala website-ka waxa waaye ilaa 2,000 oo qofood ayuu live u qaadaa marka ilaa 2,000 oo qofood ayaan ku geli doonaa live zoom qof dambe uu ka buuxsami doono ma jirto marka masha Allah saas muhiim dhammaanteen maxaa su'aalaha isii weydiinaysaan 1 minute ayaa dhiman kadib oo kusoo laabanaynaa si aan su'aashaada uga jawaabo markaan kusoo laabtaba zoomka uu shaqaynaya okay waxaan aasgelay mid xoogan sideen marka u akhriyaa okay nasdaq waa fiirinaynaa hadda kadib intriga qaabka u qaadan lahaydeen wax walba ogeydeen la wadaagayna qolka publiga oo kusoo dirayna insha Allah suuqa muhiim waa beeshin inaa noqoto waa muhiim qof waliba oo beeshin noqdana waa qofka faa'iidada suuqa ka sameeyo suuqana isdhamaystirin structure-kiisa haddii aad gasho waa ku niyad jabaysaa waxaana macquul ah corrective inaad ku maxay ahayd ama pattern isdhamaystirayo kaleeto inaad ku trade garaynaysa ayaa suuragal ah marka inuu ku yimaado waa muhiim calaamadaha uu kugu imaanayana iyana mar waliba waa sharxanaa cashiro badanna way soo socdaan aad ka dhex fahmi doonto insha Allah